adiga ilka cas dhexdiinana ma soo galin waligay allahay marka soo aflagaadayso laakiin hadda mas'uuliyad baa iga saaran inaan daag ku dhaho oo adigana aan dharbaax kugu dhufto dharbaaxada social media aan ka hadlayaa marka saasa naga dhaxaysa laakiin arinta caawa ka hadlayo waxay tahay aniga iyo orgiyo waxa aan isku haysano ana inta ka cadeynaayo been waxba social media ku soo qorin qoraalka ay soo galisay videogan dabadiisan soo gelinaya dadku ha wada arkaan aniga qisada aan ka sheekayo dadku ha ay maqlaan labadeena kii gardaranna Soomaaliya hawiyo iyo daarad waana daawanayaan ayaga garta qaadaya kii gardaran labadeena inta jeer ay igu soo xadgudubtay oo igu soo dhaga hadashay oo ay dhibaataysay bartaana ka sheegaya caawa ma qarinayo sideedaba hadalka murtiga u dhintaa lambar 1 horta gabadhan qaladka ay iga gashay wuxuu yahay waagi ani Faisal Xawaasi aan wada joognay ayaa waxa jira wiilal soo gal jiray social media especially dhinaca Facebook oo fara badan waxa dhacday hadda ka hor ina aragteen in kala ma aqaanay in social media wiil mursada ah oo kacab la dhihi jiray oo live ii soo galay Facebook kadibna uu yiri Niciimo Joker uu ruwa calay leedahay ninkeedii oo sida ka warqabta anigii Faisal isma arag personally marka laba qof oo aan is aragba marka Mareykan Minneapolis ayaa waxa weyn Niciimo Joker saas uu ruwa calay leedahay aniga waa yaabay aan fariira ilaahay ii keen wiilka xaqo igala qaada isma naqaan waligay ma arag isla ma hadal mawlid wiil la dhahay wiilal badan ay soo caay adi finally xabadan xaqay iga socota waxa la iga cayn jiray page fara badan oo ayadu ay leedahay gabadhan aliga caay jiro gadaal aan ka ogaan doono ina ayada leedahay waxa kamid aha waxa kamid Farxiyo Kabayro official la dhaho oo wiil in adeerkeeda oo mursada oo gacanta ugu hayo oo si toos ah aniga la iga soo caay waxyaabaan ahayn la igu sheego oo been la iga sheego ayada iskale waayo anigii ayada anagoo isla joogno ayaan aniga ayada isla ma hadli jirin bilkan isla deganeen waxa waaye marka magaaladan imid xalfada la ii dhigay xalfada markii la ii dhigay waa is aragnay waxaan isku aragnay sarta dheer oo symbol elevatorkeed waxaan ku yiri habareer xalfad welcome la ii dhigay magaalada imid siba ku juuxmeynaysa la hadlin sidii aan isaga dahay aniga ayadu isma wacan jirin isla mana hadli jirin waa marka magaalada imid gabadhi saan sidii uu ahayn waa dhexdaas isku soo dardarsanay page-kii caaydi waa la iga joojiyay markaan ayada ka haro oo qof kale la saaxiiba caayda la igu bilaaba markii dam maskaxdeeda ka shaqeysiyay waa jidkaasna fanaaniin fara badan oo Soomaaliyada laga soo caaya oo gabdho badan ay ku jiraan waa iska daay anoo sidii ah sheekadan waxa soo baxday Niciimo uuray leedahay wacal bay rimantahay waa dhilo sharmuuto waaya waxa Niciimo guri kama baxay meel xun ma istaagtid dadka wareega ma tiid naagaha raac ma tiid meel xun ma tagtid meel uu qayilay ma tagtid ciyaal suuq ma raacid maxay tahay ceebtan iyo waxaan laga daboodo oo Facebook intaas la soo gelinay yaa waxaan ka dambeeyay adi finally sheekadii aan baaray Yurubaan la xiriiray qarash badan aan galiyay waxaan soo ogaaday gabadhan wiilkan kacab la dhahay iyo dhalinyarta meesha ku jirta inay gabadhan ka dambayso oo igu soo dirtay gabadhiina saaxiibana si aan ugu sheegan garan waay adiga waa mana qabsan waa isaga aamusay waa dhexdaan hadana darisa ahayn way ii imaatay waa heshiinay oo Kenya ahayn Snapchat-ka xataa la soo galgali jiray inaan aragtay in kala ma aqaanay ayadoo anagoo okay isku ah baan siidara nacay waxaan ir xaafadan waa isaga guuraa waa ka soo guuray siidar waxaan soo degay guriga hadda aan deganaa 2021 February siidar ka soo guuray kowdeedii furaha waxa la siiyay 28 January February 1st gurigaan soo degay gurigaan marka aan soo degay maalmaha qays isbaranay ahayd bas qays aan isbaranay laakiin ayadu ma ogeyn because ani waxaan ahayd dadka sheekadooda iyo date-kooda wixii haday serious ahayn anu dadka inaan la share gareeyo ma jecli markaasna de qof aan isku cusubno ahaa qays maba u sheegin ba ayada waana soo kala dheeraano dad markaas isku dhawo darisamaana ahayn adi xaafadan xoogaa markaan deganaa February March April May April horta waa baxay Seattle aaday waa soo noqday May hadana Seattle isaga daba noqday aaday May June kowdeedii aan waxaan isku dhacnay wiilkan Daahir Cali soo la dhahayo oo wariyaha ah oo social media soo gala baa isku dhacnay markaan isku dhacnay dagaalka u socday horta maalin accidentiga koowaad wuxuu ahaa first accident aniga aad nagu kala dhaco idin sheeka accidentiga koowaad oo aniga ayada nagu kala dhaco horta wuxuu ahaa waxay jeceshahay wiil aan isku dhacnay wiil oo dhalinyarta wax la dhigay jirtay ah wiilkii marka way oroday anagoo heshiiso caadi isla qosolna sawirkiisa soo dhigatay bas waa intay baxday oo gurigeeda ka baxday bay ka amar la soo gasho waxay la soo duubtay Snapchat
bas guriga igu timi hebelaan is aragnay way igu kor wada waxaan ku yiri aniga qofkaas waa isku dhacnay waana isku dhacsanay barnaamijyada inimo islama dhigno marka aday ku taala waa idin dhexgalayaa waxbuu ka tabanaya waxbaha aniga hana dhexgelinaan ku dhahay aniga qofkaas heshiiskiisana ma rabe habarere macaani hore aan uga socon arinta sidii iga amustay haddana waxaan isku dhacnay gabadhan hani la dhahayo oo hani sharaf aan isku dhacnay hani sharaf marka isku dhacnay ani hani sharaf hadda waxba naga dhexeeyaan dad kuula oo caadi ah nahay laakiin hani sharaf iyo aniga isku dhacsanayn hani sharaf sawirkeeda ayadii walaasheed bad snapchat-kooda soo dhigteen ayadoo ordaysa isoo wacday habar haye waxaan ku yiri inaan weydiiyo rabtaa mogto waxba ma weydiin markaas cabaarka jirtay gabaro xamar joogta aan shaarad u soo sameeyay ma aragtay waa shiba isaga dhahay haddana hadal kale igu soo celisay shiba isaga dhahay waa dareema gabadha inay fidna rabto waxaan ku yiri haye waa sii seexanay nabaday sidii ay uga tagay habeenay ahayd adi anagoo sheekada intaas marayso ayaa sheekada hadda ku iimaanay marka June 1st waxaan isku dhacnay daahir caliso ninka suxufiga iyo aniga laba qof oo social media caan ka ahayn ayad gabar caan waay oo fanaanad ah waa isku dhacnani asaga marka isku dhacnay umada kale magaalada joogta dhan caadi ahaayeen gabadha ayadu ordayay soo wacday kama qaban telefoon mar labaad soo wacday kama qabanin waxay soo kaxaysatay ilaahay baa igu og inaan been sheegin oo wallahi oo billahi oo tallaahi tu alif teedi habeenimo anoo gurigeyga dhex fadhiyo oo waliba maxaa sameynay matimaha shalnaysanaa anoo macnaha si haysatay afar wiila isnaqaano iyo ayadii irida gurigeyga soo garaacday gaaw ilaahay baan ku dhaartay waxa mooysa booliis waa ka fura waxay tiri habar maanta dhana ku soo wacin maxaa noogu cabeysay waxaan ku yiri BC ahaa waxay u socotay inay kaamarada iga duubato waa soo fariistay barsadii soo fariisteen ma sha Allah tabarakallah waa soo dhaweeyay aan qof guriga kuugu imaado waliga lama xumay dabeecada ani aqaano waxa waa haddan anagoo anaan xiriirkan u fiicnayn haduu qofka iridii soo garaaco daasid waxaan u qabo waa iloobaya qofkaas gurigeygu iigu yimid sharaf ka weyn ma jirto waa soo dhaweynaa saasa aqaan aniga dhaqanka la igu soo koriyay iridan ka furay soo dhawaadaan dhahay way fariisatay waxay ugu tiri adigii daahir caliso arintiin inaa soo gabagabeeyaan rabaa fiideo raali gelin ah ina u duubtidna waa rabaa waa ka duubayay isdiyaari kaamaradan waxaan ku yiri ani horta kaamaradiga ma duubaysid aniga ninkaasna sheekadana waxay noqotay durugta ceebtii dagaalku cirkaas iyo caadaas isku shareeray oo maanta ma taagna niciimo ma taagna wuxuu taagan yahay rag because rag wuxuu u taagan yahay aniga markii liicay tolla ayay yaa Soomaaliya ma dhin tolla ayaa daaroodan dhahay marka qabiil wadaama ani arabka aan ku dhuftay gabarna aan ahay sheekada way fogaatay reebtiga soo gal adeerkaya soo galay tolweyn oo dhan soo galay wixii qaraabo aan ahayn daarood iyo hawi isaaq dagaalkaas looma kala harin marka maanta inaan aniga aan hadana inta luqluq ka baxo adiga inta ii imaatay orgiyo video iga duubatid lama heshiinayaan ku dhahay way baxday inay iga aqli badan tahay mooday arin ileen naagta marka ii socotay Facebook-geeda post soo dhigtay ee leedahay Niciimo Jookar u socda arintan soo dhameynaya raali gelin bixinay marka raali gelinta ka diidan post soo dhigtay ee leedahay aniga dhexdooda waa ka baxay ninkii naagta postigi dambe ana waa ka soo jawaabay postigi waxaan soo qoray aniga waxa gabadhaas iyo waxa ii imaaday dad badan oo aan aqaano oo magacyadooda aan meeshan ka sheegaynin waxayna iigu imaadeen nabadeyn anigana waa ku gacan saaray nabadii ana diiday ma qarin waan cadeey aniga naag hadalkeeda laga batan mi gabadhan yaani khilaafkeena meesha ka soo bilowday waxay ilkaas ugu marsiyoon aan sheega mugta saasan ku qaltay waxa la rabay farxiyo inay iska aamusto maysan sameyn sheekooyin badan way soo baxeen dad badan oo isoo aflagaaday social media in ayadu igu soo dirtay la soo ogaaday oo ana magacadooda hadda sheegeen because ani ay weeshiinay dadka daashiisaan lama sii daba dhigto anu ma ihi dadka ma aragtay meed garaac yaqaan maahay marka waxa dhacday habeenkii dambe labaad daahir caliso sawirkiisa soo dhigatay waxay soo dhigatay Facebook-geeda waxay soo dhigtay Ayub Carlo iyo caynay sawirkiisa iyo daahir caliso soo dhigatay waan arkay waxay soo dhigtay jugta culus kalmad jugta culus oo daahir caliso iyo aniga dad saacayaan wax walba isku caynayni kalmadaas ka soo dhex baxsatay jirtay 4 daqiiqo way ka saartay waa haya screenshot-kee bas aniga halkay marka arkay shiba isaga dhahay ani screenshot-ka xataa kama soo qaadin gabdho badan fareenna
soo waca murursada oo aan isnaqaano Yaasmiin Caraale kamid tahay anoo karbaashay waxa la igu yiri Niciimo Jookare gabadhaas faraha ka qaad okay been bay iga sheegtay Facebook live soo gashay waxay tiri ogaadeen waxa la iga raali ahaado saan waaye ayadii midha khilaafaad kale to qabiilo ka dhaxeeyay ay xalinaysay ma dhihin maxaa u xalinaysaa iyo maana ay haysataa because aniga imaba qosayso ayadii ogaadeen wixii ka dhaxeeyay because anigu ogaadeen meehiyo ma jeerteen ba ah barasho wanaagsan saaxiib marka ogaadeen bay u la garamaysay soo anigana ma dhaxgelina gabadhaas ogaadeen kala garamaysa aniga ogaadeen de afhayeen u meehiyo ayadii baa la hadlaysa moogta shiba isaga dhaaway indhaha ka daawanay waxay samaysay video dhaga hadala oo aniga macnaha ogaadeen ay igu xaqlinayso bay waxay soo dhigtay Facebook sidan ay hadal tiri Niciimo Jookare caadi uma dhahaysan laakiin aniga iga wadaay niman baa la igu soo diray naag baa igu soo dirta Mareykan joogta oo tiri hala dilo farxiyo Nairobi anigana nimanka waa ila soo hadleen sirtaadi way fashilantay horta runta haddaan ka hadlo inkastoo de bini aadan uusan qancaynin haddana wallaahi oo bilaahi oo tallaahi Nairobi qof aan toos iskula hadalno ama personal aan u aqaano ama amaanta aqoon u leeyahay waxa ka joogta gabar Leila Bashiir la dhaho habareer aan u ah ayaduna ay ilma habreed yihiin qof kale oo bini aadan oo maanta aan kala xiriiray Leilana waa ogtahay hal qof oo bini aadan oo maanta aan ka aqoon Nairobi dadku dushaas unba iga yaqaana aan dushaas ka aqaana iska jecelnahay laakiin qof aan caadi isku naqaano caadi isku wacna Leila ka jirta dad badan oo taageera jooga Nairobi inay arkaan jecel oo aan isbarano laakiin Ilaahay caafimaad nagu wada gaarsiiyo laakiin qof aan isnaqaano maanta ma jiro ilaa isbarano Kenya kul xal way igu soo dhaga hadashay way la soo dhaga hadashay shiba isaga dhahay way baxday sawirada daahir cali soo dhiganaysa dib ma laha dadku way soo dhigan karaan sawiradooda laba qof haday isdagaalaan dadku way kala jabi karaan big deal ma aha inkastoo aniga ayadu aan dad saas close very close aan ahayn oo dad laakiin saaxiib waligeed ma aan noqon laakiin waxaan ahayn dad is yaqaan oo close because isku baabna ma ahayn isku balwadna ma ahayn isku jaanqaadna ma ahayn marka dad isku saaxiiba ah oo israaraaca aniga ayadoo meel kasta isla tagay ma ahayn laakiin dad is yaqaana ahayn oo dariskana xaq u leeyahay xaq dariskana waa dhowri jiray because afkayga iyo adinkayga way ka nabadgeli jirtay gabadhaas afaareeda kama hadli jirin waan taageeri jiray hees cusub haday soo saarto waa soo saari jiray snapkayga dad xushmad ka dhaxaysa ahayn ayadoo intaas oo xumaana marayso oo aan isleeyahay gabadha maxaa ka qaldan ba message loo qoray gabadhan message-ka marka Soomaaliyo dhan ba af Soomaaliga isticmaasha Soomaaliyo dhan ba isku si wada hadasha dadku kala luuqad ma aha laakiin gacmaha aan taleefankayga ku hayo iyo carabka aan ku hadlaayo Ilaahay kansar ha iga galiyaan ku dhahay inaan message-kaas qorin waxna ka ogeyn message lagu caynaya loo qoray way baxday message-kii screenshot ka qaaday gabar bay u dirtay wiil u dirtay way iga dacwood waxay tiri Niciimo Jookare ba text message ugu soo cayday waxa ay wiilkii ay u dacwootay soo wuxuu yiri Niciimo message gabadhan ku cayday waxa ay wallaahi oo bilaahi oo tallahi aniga ayada xumaan ee ayada ii qabin ani uma qaba gabadhan ayada daraamo maanta oo dhan igu wada laakiin gabadhan xumaan uma qabo message-na uma qorin mana arag markaas waa la waxa li waa gabadhu waxay tiri message uma soo qorin waxay ku jawaabtay hadalkeeda iyo qoraalkeeda aqaana waa qoraalkeedii waayaba gabadha cadaawada intaas leego Kenya askar ay ugu soo dirtay message ii soo qortay war gabadh maxay soo wada gabar la aroosay gabadha hani sharaf waan isku dhacsanayn oo dadkii waxay ku jirtay daahir cali soo hiiliyay anaga hore isugu dhacsanay haddana dagaalka dhinacan iiga soo qaaday reason la'aan okay dib ma laha aniga marka waxay samaysay gabadha arooskeeda snapkeeda soo galgalinaysay big deal ma aha qofku aroos waa soo galin karaa anu 100 gabdhood baa maalin soo galiyaa wax weyn ma aha hees bay u soo qaaday ma sha Allah tabarakallah aroosad qofku markuu guursado hees giftay qof walaalkiisa ama saaxiibkiisa uu ka heli karaa wax weyn ma aha maanta oo dhan message ii soo dirtaa luuqal igu soo diraa Niciimo Jookare maxay tiri maxay maalin dambeeto Ilaahay amarkiis gabadhan ayadoo intaas oo qalad iga gashay oo maanta dhan iga dacwoonayso oo anoo waxba ka sameey inta ay daba socota baa habeen anoo xaafadiska joogo wiil Yurub jooga ayaa wuxuu yiri qofka saaxiibka moodayso saaxiibka ma aha WhatsApp-ka liigu soo qoray war qofka muxuu ka wadaa saaxiibkee wala saaxiibba ma lihi naagta saaxiibka la tahay orgiyo ka wadaa